Queen Elizabeth laba waa ay dhimatay. macluumaadyo khaas ah oo aysan dadka wax badan ka ogeyn oo ku saabsan Queen Elizabeth laba. haddaba waxaa soo shacbaxday xogta qoyska boqortooyada. waxaa jira sharciyo iyo qaanuun ay ku dhaqmaan qoyskan. qofka jabiya sharciyadaana uu muteysanayo ciqaab. sidoo kale waxaa banaanka imaaday isku dhaca iyo mugdiga soo kala dhaxgalay qoyskan oo soo bilaabatay sanadkii tagay ee 2021. dagaalkii ka dhex qarxay labada wiil ee walaalaha ah Prince Harry iyo walaalkiis oo hadda dib iskugu arkay kuna midoobay tacsida ayayadood Queen Elizabeth. sidaad wada aragteen Prince William waxaa ku tagtay bidaar oo timihiisa gadaal ay u sii siqayaan. waa maxay sababta uu timaha u beeran leeyahay asagoo lacag haysto? waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. muuqaalkeenana waxaan kaga hadlaynaa waxyaabo ku saabsan qoyska boqortooyada iyo sidoo kale macluumaad khaas u ah Queen Elizabeth laba. shuruuciyada iyo qaanuunka ay ku dhaqmaan qoyskan boqortooyada waxaa ka mid ah dumarka qoyskan looma ogola inay xirtaan dhar cawradooda soo muujinayo oo waxaa loo ogol yahay markay iskaadka ama goonada qabaan in goonada ay jilbaha ka hooseyso. gabadhii qoyskan ka mid ah oo cawradeeda banaanka keentana waxay muteysanaysaa ciqaab. dumarka qoyska boqortooyada waa ka mamnuuc cidiyaha ay gabdhaha gashadaan iyo waxyaabaha ay isku qurxiyaan. sidoo kale qoyskan boqortooyada dharka balaaga waxay ku soo labistaan kaliya marka uu ka dhinto qof. waxayna soo bilaabatay Queen Elizabeth laba markii aabaheed uu dhintay iyadoo Kenya joogta 1952. wiilasha da'dooda ay ka yar yihiin 8 sano waxaa loogu talagalay kaliya inay ku labistaan ama xirtaan saraawiisha shortska ah ee ka sareeya jilbaha. waxayna ku macnayeen inay tahay dhaqan soo jireen ah. sidoo kale isticmaalka make-upka ayadana waa la joojiyay oo waa ka mamnuuc qoyskan. kaliya waxaa loo fasaxay inay marsadaan make-up khafiif ah. timaha la midabeysanayo ama timaha la soo beeranayo ayadana waa ka mamnuuc. waa sababta Prince William uu soo abuuran leeyahay timo sidiisa ayuuna ku soconaya. waa qaanuunka iyo sharciga u yaala qoyskan boqortooyada. haddaba waa maxay dagaalka iyo isqabqabsiga ka dhex jira qoyskan? sanadkii aan soo dhaafnay 2021 Prince Harry iyo xaaskiisa Meghan waxay waraysi siiyeen Oprah. waraysigaasna waxa ay daaha kaga qaadan ama ku sheegeen waxyaabo badan oo aysan dadka ogeyn oo ku dugnaa qoyska boqortooyada. But I've got to do something for my own mental health, for my wife's, and for Archie's as well, because I could see where this was headed. They didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol. Prince Harry wuxuu soo guursaday gabadhan Meghan. gabadhan asal ahaan waa gabar Afrikaan ah, carmal ah, sidoo kale waxa ay wax ka jishaa filimaanta ama waa actress, laakiin kuma aysan faraxsaneen qoyska boqortooyada inay ku soo biirto gabadhan. sidaas oo ay tahay way ku qaateen wayna aqbaleen ayagoo ka xun. Meghan ayaa sheegtay in mar walba la cunsuriyeyn jiray, ninkeedana kuma uusan qanacsaneen sida ay ula dhaqmayaan xaaskiisa qoyska. ugu dambeyntii way iskaga soo tageen waxayna soo degeen California. Prince Harry wuxuu sheegay inuu iskaga baxay dhammaan qoyska boqortooyada oo uusan ka tirsaneen. sidoo kale waxaa la sheegay inuu tabanayo ama ku eedeeyay aabihiis inuu ka dambeeyay dilka hooyadii. aan dib ugu laabana waqtiga King Charles saddexaad ninka hadda bedelay Queen Elizabeth laba dhimashadeeda kadib waa aabaha Prince Harry iyo Prince William. xaaskiisa ayaa isku dhaceen kadib waa ay kala tageen. kala tagaasna waxay ahayd waxyaabihii ugu weynaa oo soo maray qoyska boqortooyada sababtoo ah ceeb ayay agtooda ka ahayd gabar ay soo guursadeen ama ka mid noqotay qoyska oo ay banaanka u saareen ama kala tageen. xaaskii hore ee King Charles saddexaad markay kala tageen waxay dalxiis u joogtay France iyadoo gaari wadato ayaa waxay gashay shil meeshaas ayayna ku dhimatay. baaritaan lama sameyn oo sababta uu shilka ku dhacay dad kale lama wadaagin. meeshaas ayaana lagu aamusay. waa sababta Prince Harry uu ugu tuhumayo dilka hooyadii inay ka dambeeyeen qoyska. sidaas oo ay tahay wuxuu sheegay inuu iskaga dhex baxay qoyskan, laakiin qoyska boqortooyada waxay sheegeen in weli wiilkooda u diiwaan gashan yahay oo uu ka mid yahay qoyska. haddaba waa maxay macluumaadka khaaska ah ee ku saabsan Queen Elizabeth laba? Queen Elizabeth laba waxay ahayd qofka ugu taariikhda dheer ee sida xilkaas, waxayna siday ilaa muddo 70 sano ah kadib ayayadeeda labaad oo lagu magacaabay Queen Victoria oo ayadana siday 63 sano. Before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Queen Elizabeth laba weligeed iskuul ma aysan aadin oo yaraanteedii ma aysan ahayn qof wax soo bartay iskuul aaday, laakiin xaafadda ayaa loogu keenay macallin khaas ah oo u dhigo taariikhda, sharciga iyo luqadda Faransiiska. Queen Elizabeth laba waa qofka kaliya u dabaaldegta dhalashadeeda 2 jeer. waxay dhalatay Abriil 21-deeda 2 jeer ayayna sanadka dabaaldegtaa. mid ka mid ah dahabka ay silsilada ka dhigatay oo ku xiratay luqunta iyo faraantiyadeeda waxaa laga keenay India. hindidana dahabkan agtooda waxa uu ka yahay qaali oo ay aaminsan yihiin, waxayna u yaqaanaan magaca ah Light of the Wall. waxayna aaminsan yihiin hindida in dahabkan laga xaday oo gumeystihii uu xoog uga qaatay.
Queen Elizabeth laba waxay ahayd qofka kaliya ee dunida safro baasaboor la'aan wadan alla wadanka ay tagayso uma baahna inay qaadato baasaboor iyo fiiso sidoo kale Queen Elizabeth laba waxay ahayd qofka kaliya ee aanan haysan license ama sharciga lagu wada gaariga wadan alla wadanka ay tagtana waxa loo dhiibi jiray gaari ay gacanteeda ku wadato wax license ahna ma aysan wadan wadista gaariga waxay baratay 19 jirkeedii waqtiga uu socday dagaalkii labaad ee adduunka iyadoo kaga qayb qaadanaysa caawinta ciidamada dagaalka ku jiray waagaas waxay leedahay ATM ayada khaas u ah oo ay lacagta kala baxdo uma baahna inay leen dheer gasho si ay lacag oo la baxdo sidoo kale ma bixiso tax ama canshuur sida wada ogsoonahay dawlad walba muwaadiniinteeda waxay ka qaadaa canshuur laakiin Queen Elizabeth laba waxay ahayd qofka kaliya ee dunida aanan bixin wax canshuur ah xitaa madaxda dawladda waxa laga qaadaa canshuur oo mushaarkooda ayaa laga jaraa waxay ahayd qofka kaliya awood u leh in ay casisho ama xilka ka qaado ra'iisul wasaaraha wadanka UK sidoo kale Queen Elizabeth laba waxay ahayd qofka kaliya ee dunida aanan la xirin wax sharci ah ma qabto dambi walba oo ay gasho sharciga ma qabto lamana xiri karo haddaba su'aal ka waran haday disho qof dambigaas ciqaabtiisa ayaa marayo haday dambi aad u weyn gasho dambigaas ciqaabtiisa waxa marayo oo lagu fulinayaa ra'iisul wasaaraha wadanka UK Queen Elizabeth laba ma lahan wax social media meeshaas ayay ku dhimatay Queen Elizabeth laba haddana waxaa dhaxlay oo taajka boqortooyada loo saaray wiilkeeda King Charles saddexaad halka Prince Williamna uu noqonayo dhaxal sugaha boqortooyada laakiin su'aasha taagan ayaa ah dagaalkii u dhaxeeyay Prince Harry iyo qoyska boqortooyada meeshaas ma ku soo dhamaan doonaa oo ma heshiin doonaan muuqaalkeena intaas ayuu noogu eg yahay waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh mar kale meel walba u tugtaan soo dhawaada muuqaalka haddii aad ka heshay like saar si uu dad badan u gaaro asxaabtaadana la sii wadaag waqtigaagana waad ku mahadsan tahay